بسم الله الرحمن الرحيم ugu horeyntii waxaan salaamayaa guud ahaan akhyaarta isugu timid shirkan waxa ilaahay mahadiisa maanta inay yaaliyada Soomaaliyeed ee South Africa isugu timid shir gobolka Western Cape magaalada Cape Town xaafadda Belwenta shirkaas oo looga arinsanayay sidii loo abaabuli lahaa shir lagu taageerayo shirkii lagu qabtay magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya shirkaas oo ahay wada tashiga beelaha mudolot wixii ka soo baxay jaaliyadda markay iswarsatay waxay la baxday guddigaasi wuxuu gorfeynayay qaabka uu ku dhici lahaa kulankii lagu taageeri lahaa shirkaas iyo waqtiga uu dhici lahaa waxa ka soo baxday in la abaabulo shir lagu taageerayo shirkaas lana qabto hadduu alla idmo maalinta axadda ah ee soo socoto ee ku beegan 16 bishan laguna qabto magaalada Cape Town xaafadda Belwenta sidaas darteed waxaa loo sheegayaa iclaamkaani in alla inta ay qusayso si ay uga soo qayb galaan shirkaas hadduu alla idmo lagu taageerayo shirkaas nabadeed muhiimaduna waxay tahay haddii shir meel lagu qabto shirkaasi waxba ka soo baxay waxa ka soo baxana ama waxay noqonayaan wax farxad leh oo la taageero oo loo muujiyo inuu wanaagsan yahay horumarna loogu duceeyo ama wuxuu noqonayaa wax aan fiicnayn oo laga hortago shartiisana la yiraahdo Allah umada ka qabto maadaama shirkaasi uu ahay shir nabadeed oo lagu bilaabay islaax beel hoose kuna wajahan islaax guud ee Soomaaliyeed waxa laga fiirinayana waxay ahaayeen waxa ka soo baxay mirihiisa haddii shir la qabto 3 meel laga fiiriyaa goobta lagu qabtay dadka qabtay iyo bayaanka ka soo baxay goobta lagu qabtay shirkaasi sidaan ka warqabno waa goob cibaado oo diinka lagu akhriyo dadka qabtay mustawaha ay lahaayeen mujtamaca Soomaaliyeed waa wada garan kareen bayaanka ka soo baxayna wuxuu ahaa bayaan dadka oo dhan raali galiyay oo bayaan nabadeeda sidaas darteed waxay jaaliyadu isla garatay wanaagaas inay taageeradaas ayada ah ma aha mid beel ku kooban waa mid ku wajahan inta wanaaga jecel waxaan leenahay shirkaasi wixii ka soo baxay ilaahay ha garab galo Allah najixiyo wixii lagu ballamana kuwii fuliyo Allah ka dhigo inta ku ballantay waxa laga rajaynayo oo wanaag ahna waxaan rajaynaynaa in ilaahay uu ka keeno Soomaaliya oo dhan oo anfaco asagoo ka bilaabanayo beesha uu ka bilowday kadibna uu gudbaayo Soomaali weyn waa mahadsantiin salaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh